الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي سبحانه وتعالى وحي خيرك أهنا سهنا وافجيو شر مانتيسنا دمانتينا الله نغهايو ولا لها سومالية دمانتينا وحان كعصنايا بلي سي قدبية أو غارسية ولا لها كله meel walba aad awoodi kartaan intiina wanaaga jecel ee Soomaalinimada jecel ee dalka jecel ee qoomiyada jecel waxaan ku codsanayaa wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu dhamaantiina walaalaha qaaliga waan salaamayaa inta wanaaga jecel sii gudbiyo waxaan ku codsanayaa u geeya walaalaha kale ee Soomaaliyeed si ay message-keena u maqlaan maanta insha Allah waxaan ka wada hadli doonaa hadii Ilaahay iraaho dhowr qodob oo kamid ah macnaheedu waxay tahay waxaan ka hadli doonaa shirki iyo wixii ka soo baxay shirki iyo wixii ka soo baxay marka waxaan ku bilaabayaa horta marka ugu horeysa maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed ibnu cabdullaahi farmaajo cabdullaahi maxamed waxaan maanta aniga ii soo baxday mar walbana aan ogaaba waligay waa ogaa dad badan oo faraanahay oo maxay Soomaaliya ka hadla ayaa og waligoodna aan ku dhigi jiray Soomaali ninka siyaasisan maxamed cabdullaahi farmaajo maanta qarnigan uma joogo nin ka dulqaad badan na uma joogo nin ka dal jecel oo ka wadanisan na uma joogo nin ka qoomiyad jecel oo ka jecel sharafna uma joogo maanta wixii waligay qalbigayga ku jiray ee aan ka arkayay unbuu ku hadlay hadalkiisa markaa dhagay waxaan idin leeyahay nin ka siyaasisan maanta uma joogo horta siyaasadda waayahan dambe Soomaaliya siyaasadeedu waxay ahayd qabyaalad siyaasad ma jirinin siyaasadan ma jirin siyaasadda Soomaaliya oo dhan waxay ahayd qabyaalad siyaasadda Soomaaliya oo dhan xalkeedu wuxuu ahaa qabyaalad siyaasadda Soomaaliya oo dhan oo ragga siyaasiyiinta isku sheegaa ee Soomaaliyeed ay gorfeeyaan waxay ahayd xoog dhac iyo boob iyo qabyaalad laakiin siyaasadii runta ahayd ee siyaasad ahayd ee adduunkan aan ku noolnahay iyo adduunkan hore u maray iyo adduunyada maanta jirta siyaasad ahayd ee adduunku ay ku dhaqmaan the only person oo ku dhaqma oo og oo yaqaan oo deeply u siyaasi ah waa maxamed cabdullaahi farmaajo reality marka idin sheego wallahi inayna amaaniga ahayn oo billahi inayna amaaniga ahayn waa magac Allah waa reality-ga markay aan eegay adduunyada aan ku noolahay sida ay u dhaqanto siyaasadda adduunku sida ay u shaqeyso iyo siyaasiga adduunka ee siyaasiga runta ama siyaasi oo dabiye kabood ama aha sida uu dhaqmo qarnigan waxaan ogaaday
oo aan ummadda Soomaaliyeed idin sheegaya oo aan idin xasuusinaya qarnigan maanta aan ku jirno iyo baaba last 3 decades Soomaaliya ku dhacay nin ka siyaasisan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuusan jirnin waa the real siyaasi oo cadaalad ah oo daacad ah oo dal jecel oo qoomiyad jecel oo dabaqabad jecel the only siyaasi we have oo dabaqabadka dalka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed inay dib u soo noqoto iyo qarannimadeena iyo sharafteena inay dib u soo noqoto raba waa the only person the only one oo raba inuu ka tago ummad is haysata oo la dhaho Soomaaliya hadalkayga ma aha waxaan iska dhahayo laakiin bal adiguba u fiirso damiir hadaa leedahay bal adiguba u fiirso hadaa qabyaalidista ahayn bal adiguba u fiirso hadaa qof aqoon yar oo macna leh ay ku jirto hadaa tahay u fiirso hadalka aan ku dhahayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa the only siyaasi maanta Soomaali u nool reality ga idin sheegaya siyaasi baan nahayay keer baan nahayay baraq baan nahayay the only siyaasi oo maanta u nool Soomaali waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana waxa aan darasnay oo wixii aqli la ay garan karaan waa waxa adduunyadu ay aragtay adduunka aan ku noolnahay ee horumaray waa waxay arkeen waa waxa ay cadawgeeni Kenya iyo Emirates la fadhiisan laayihiin ee ugu dhacay mataqaanaa waxa ku dhacay bamkii Hiroshima ayaa ku dhacay waa qarracansan yihiin maskaxdoodii dhan waa maqantahay waa waxa ay u fadhiisan laayihiin محمد عبد الله فرماجو إلهي مدحيسا الراجيو إلهي وحان كبريا مدحيسا إنو راجيو ومدى صومالياتنا الساقع عمل إن إلهي أكيانو أو بران إلهي تاسان كبريا معناها أنا دين نهاية إلهي بانت كل داري وقف كي ضمير له كي ضمير له كي ضدنما له ما أنت محمد عبد الله فرماجو هذا الكيسة دقيسو أو روح حدا ضمير ليضهي كركا وود دباحنايا وتشرعونايا وقيرونيسا سيدا إذا عمل أي بالدية وحكا بحيث أوهين أو كوكاس قفكي لعبسيو دور حرات كبئنايو أيا كا إيمانيسا حدا تقف ضمير لي لكن حدا تقف قبياليستي أو قبيالا لمسكحديسي عقليسي سياسديسي بطاي وحكا دريمي ميس هل حبك ما أوغانيسي هل حبو أو أكو أوغانيسي ما جرتو بيكوز ما أوغد با ما أنت هذا الكيسة مركات لغيستين ما أنت هذا الكيسة مركات لغيستين بل إن يركا ليا عنك سوقاتو وحو إذن يري وحان أتن السلي إنت آن داد كيغو كلا تاقي لها أو آن ششاية وياران لها نهشيسيسية ديه لهين وحان قادنا يا وحي أن قدها قولا ما يسانكرنو وحان اسكو دايا inaan gudaha ku dhamaysan 100 jeer hadda ka hor waxa idin dhahay Soomaaliya hadaad wax fahantaan 100 jeer waxa idin dhahay Maxamed Cabdi kuwa waxaan arkay maalin ma dhaxay habra iyo ninko intuu habra soo qabto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aflagaadeyna ani soo qabo marka dhahayna diiday inuu soo qabto oo dhahayo maxay tahay dhahayaan waa nacas waa jilicsan yahay waa keer Soomaali ninka siyaasisan kama dhalanin laakiin waxaan idin sheegay in uu yahay nabadoon Soomaaliyeed markii la doortay wuxuu idin dhahay anigu ma ihi madaxweyne Soomaaliyeed kaliya waxaan ahaa rabaa inaan noqdo nabadoon Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan noqdo nabadoon Soomaali qofkii damiir leh oo aqli leh ayaa garan kara laakiin cawaano maxaa ka fahmay bukaan socdo maxaa ka fahmay ilma aaranjaano maxaa ka fahmaysaan hal xabba kama garan wuxuu dhahay aniga waxaan ahay rabaa in aan noqdo waxaan rabaa inaan noqdo wadani Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan noqdo ummadda Soomaaliyeed nabadoon koodi because hadda Soomaali nabadoon ma laha ugaasiye ma laha suldaano ma laha boqorro ma laha kulligood waxay noqdeen aamusanayaan qardamayaal aamusoo dhaqaaqaada oo qari bay noqdeen kulligood meel ay joogaanba so the only siyaasi the only nabadoon the only waxgarad the only maxay tahay dal ilaaliye aan leenahay waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo the only dal jecel iyo qof ummadda Soomaaliyeed ilaalinayo oo cadow ka ilaalinayo oo shisheeye ka ilaalinayo oo raba dalkiisa iyo dadkiisa inuu soo keeno the only person aan haysano waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kii wax garad ah iyo kii wax fahmayo kaliya ayaa fahmi kara laakiin dayuus muxuu fahmaya iyo mid oo dardartay qabyaalad muxuu ka fahmi kara wuxuu ka garan kara malaha mid baan maanta idin sheegaya halka waxaan kaga bahayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay maanta the only siyaasi dhab ah oo daacad ah oo cadaalad ah oo qoomiyad jecel oo qaran jecel oo shisheeye neceb the only person Soomaali ummadda Soomaaliyeed ee la dhahayo waa 15 milyan ama waa 16 milyan ay haystaan the only person ay Soomaali dhamaanteed haysato meel ay joogto waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo the only siyaasi daacad ah oo taariikhi ah oo qaran doon ah oo dal jecel ah
oo qoomiyad raadis ah oo ummad badbaadis ah waa maxamed cabdullaahi farmaajo okay so taas intaasaan kaga baxay waxaan idiin soo qoro walaalayaal oo aan idin leeyahay gudoomiyaasha goboladu waa middle school kids waaye middle school kids maxay u noqdeen idinku bal waxay u noqdeen isweydiiya dadkiina ardaydii ahaa ardayda soo maray sidaydoo kale ardaynimada soo maray haddaad aniga reer hawlwadaag ahayd ama shir kale official ani meel dhahan ka imaaday oo aan dugsi dhexe middle school kaga baxay axmed gurey school dhahan ka soo baxay axmed gurey oo loogu magac daray iskuulkii loogu magac daray halgamaagi weynaa ee axmed gurey aan ka soo baxay hadda nin baa iskala qabyaalad nin baa dhar ugu warwartay naagana ilmo ugu dhadhalaan waa iskuulkii min taariikhiga ahaa ee magaalada muqdisho aan anigu middle school iyo elementary school labadaba aan ku soo qaatay waaye ciyaalka marka middle schoolka markaas waa markaas middle schoolka waa ogtiin marka elementary laga gudbo middle schoolka ilmuhu waa markay ugu firfircoon yihiin oo kibirka sanka ka hadlayaan waaye marka waxaan ahaan jirnay kooxo asxaabtayda gabdhaha saaxiibka nahay waxaan xasuustaa wixii wax garada wixii fahansanna waa fahmayaan haddaa reer hawlwadaag tahay am sure inaa ogtahay waxaan ka hadlaayo oo weliba reer official tahay shir kale official ciyaalka marka middle schoolka waxaan samayn jirnay like gabdhaha dhan group ay saaxiibis u yihiin wiilasha iyo gabdhaha qaar kulligood group of friends ah marka group of friends keygii hadda qaar ku jira halkaas wan kamid ah hadday qof isdagaalayaan ama wiilka ay qof isdagaalayaan ama gabadha ay qof isdagaalayaan waxaan samayn jirnay break time ka la isu gudbinaa waa la isu sheegaa waxa dhaha listen hayay maantayto deeqa qof la dagaalayso ama maanta guuleeda qof isfeerayaan alale ma ogta marka maqalna guuleed inay wiil kale isfeerayaan oo dhalinyarada kale saaxiibo yihiin waxaan samaynaynaa waa sii diyaar garoobaynaa mar alla markii saa iskuulka albaabka loo baxo oo gambalaalka dhaco oo la dhaho bay oo alla baxaayo kulligan waxaan samaynaynaa kulligan guuleeda la safanaynaa ma fahanti guuleed markaan la safarno wiilka marka isku soo boodaan kulligan waxaan dhahaynaa Johnny waxaan ka ilaalinaynaa kuwii kale inay ugu tagaan annagana waxaan kula ballamaynaa asaga inuu kaligiis dilo annaga kuwa kale waa ka ilaalinaynaa kulligan waa isku aadinaynaa waxaan qaadaynaa waa ogtiin Johnny marka qayladeena iyo sawaxankeena ayaa ciyaalka kale ka cararayaan asagii marka wuxuu sameeynaa geesinimo dareema wuxuu sameeynaa geesinimo markuu dareemo kii uu beerka ka garaacaya ma fahanti annagii oo hoosayna hadhowtana markii oo maxay tala baxana kulligan markaad waxaan ku furaynaa inuu asagu gardarnaa annaga dhan waxaan la safarnaa frankeena ma fahanti ciyaalka waa garan kartaa dhalinyaradii waxaan soo marnay waad ogtihiin waxaan soo wada marnay waad ogtihiin ciyaal Johnny iskuulka lay ka jirtay elementary xataa high school ma aha only waxay ka jirtay middle school Johnny oo saaxiibka la garab istaagayo oo si loo garab istaago uu wingareeyo oo hadhowna laga ilaalinayo inuu cadow kale ay mataqaana ciyaalka kale oo wiilka kale saaxiibadiisa ama gabadha kale saaxiibadeed ah ay maxay isugu tagaan xataa waxay sameyn jirnay gabadha saaxiibanahay markii ay banaanka lagu sugaayo aan ognahay mid kale inay u dhaarsan tahay waxaan dhigi jirnay gaad adiga markaa gaadid annagana Johnny aan qaadayna kuwa kale dhan anaga ka celinayno si gabadha saaxiibteen u rayso aan u sameyn jirnay gudoomiyaasha gobolada waa middle school kids waaye boorkooyinka waa middle school kids waaye maxamed cabdullaahi farmaajo oo qarannimo iyo ummadnimo iyo qoomiyadnimo u taagan bay isugu tageen waxay isugu tageen oo kali ana ma taqaanaan waxay isugu tageen oo kali ah waxa waay si ay shisheeyo u kalkaalaan waxay isugu tageen oo kali ah si ay ummadda Soomaaliyeed markasta bili aadan kale iyo shisheeyo gacantooda ugu jirto si ay ayaga kaliya u dhargaan oo badda iyo bariga u gataan the middle school kidska gobolada haysta waxay go'aan ku gaareen inay maafiya weligood ahaadaan oo ayaga lee isguubaabsadaan ayaga lee ishaystaan ayaga lee ay maxay ka dalka Soomaaliya gagataan oo ay habeen maalin Imaaratis iyo Kenya iyo inta lamida oo dalkeena barwaaqadiisa ka xun in ay geysay afar maxay tahay intiina daawanaysa maxay tahay 403 waraa gudbiya hoy qabyaalada iyo qashinka bawaad gudbisaan iyo waxa xun bawaad gudbisaan marka bal dadkeena si ay mugdiga uga baxaan gaarsiiya hadalkayga walaalayaal gaarsiiya haddaad wax garatay wadaniyo ku aaway haddaad damiir kugu jiro oo aad si boorgaraysan tahay qarannimada iyo nacaybka maxay tahay shisheeyaha dalkeena ku adeeganayo 30 sano haddaad nacabtahay arrin hadaarta ama naagtahay share garee videogayga gaarsii bukaan socodka habeen iyo maalin xumaanta u taagan ee dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dib u dhigaya ciyaal middle schoolka goboladu
the only thing I weliba do you know annaga markaan dhalinyarada ahayn fiir iskuulka oo middle school aan dhiganayna iskuul Axmed Gurey gabdhaha qaar baa kaabano aha ama wiilasha qaar kaabano aha waa la ogyahay hadda middle school kiiniska gobolada haysta madaxweynahooda ma taqaanaan meeshana waa idinku soo qoray madaxweynahoodu waa Dani iyo Aranjan Dani kaligiis wax ma qabto Dani laftirkiisa Aranjan ku adeegto Aranjan oo saldhigooda ugu weyn uu yahay gobolka Puntland saldhigooda ugu weyn laakiin saldhigooda labaadna yahay caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho maca Xasan Sheekha ku jiro Aranjan waa ogtihiin qofkii maskaxle ayaa garanaya so group of mafia the middle school kidska oo joonida ku ciyaarayo dalkeena annagoo taagan joonida ku ciyaarayo oo habeen maal u hoosaasinaya shisheeyaha kulligood waxa ay ku nool yihiin ofiskooda ugu weyn wuxuu ku yaalaa Puntland kooda labaadna wuxuu ku yaalaa Muqdisho waana madaxweynaha gobolada nimankan maxay tahay oo ayaga dhan middle school gudoomiyaasha oo middle school kidska ah madaxweynahoodu waa Dani oo Aranjan dabada ku wata Aranjan ka soo qaata Aranjan assignmentiga siisa assignmentiga wuxuu ka soo qaata Aranjan asagana he is the messenger he is the only messenger so wuxuu sameeyaa Aranjan waxay bixiyaan assignmentiga asagana wuxuu bixiyaa message-ka marka message-ki wuxuu gaarsiiyay the middle school kidski waa garanaysaan middle school kidska hadii loo dhiibo maal walba maxaan isu dhiibi jirnay markaan ciyaalka ahayn maanta banaanka markii loo baxo Jonia jira hili waay moqt maanta waxaan sameeynaa waxbaan qasaynaa marka waa kana maanta waxaan qasaynaa waxa waaye dalkaan rabnaa inaan afka dhulka u gelino Maxamed Cabdullaahi Farmaajo because ninkani waa daacad shisheeyihii oo dhan baa maxay tahay lacagna siinaya afka dhulka inaan u gelino waay assignmentigana waxa laga soo qaadaa Aranjan Soomaaliya horta indhaha kala fura Aranjan xafiiska heer kuwaatarkooda Aranjan waa Puntland heer kuwaatarkooda waa Puntland second office-koodana waa caasimadda dalka Soomaaliya Xasan Sheekhaana u haayo horta taa u fahma dadka Soomaaliyeedo horta kala doorta qarannimo iyo qabyaalad iyo qarannimo kala doorta qarannimo iyo qabyaalad anigu mar horaan kala doortay anigu waxaan u taaganahay intaan qarannimo intaan ka tago qabyaalad aan walaalkay Dani in adeerkay aan ku difaaci lahaa waxaan ka doortay qarannimo kulligiin waa inaa saa u fikirtaan maantaeto aniga waad ogtihiin ma sinjicaayo dadka ma qabyaalad caayo dadka qabiil ma caayo only waxaan wax ka sheega qabiil maxay tahay ninka la dhaho Dani waa nin dadkaan isugu xugna waa ehelkay waa nin ma jeerteena ehelkay waay laakiin aniga ma jeerteen ma aflagaadeynayo aniga siyaasiga Dani la dhahan ka soo horjeeda ma jeerteen waa awowayaashaydii waa dadkaygii waa aabahay waa walaalahay waa ehelkay kadalika abgaal aniga waa ehelkay waa dadkaygii waa saaxiibaday ilmahoodii waa saaxiibaday maxay tahay jacayladoodii waa habaryarahay waa ilma abtiyaashay abgaal ma caynaayo waxaan ka soo horjeedaa siyaasiga la dhaho Xasan Sheekh waxaan ka soo horjeedaa summa wallahi waxaan ka soo horjeedaa in alla inta dalka Soomaaliyeed rabta god inay ku rido ayaan ka soo horjeedaa laakiin qabyaalad uga ma soo horjeedo now waxaan idin sheegayaa Soomaaliyeed galmudug fulow guuli ku dhaweeda galmudug waa qaybta saddexaad aan ka hadlayo fulow waxa la dhahay fulow guuli ku dhaweeda Aranjan iyo inta maxay tahay maanta Puntland waxa meelaha looga sheegaa waxa la dhahaa Puntland shirarka adduunka Soomaaliya lagu soo qabtay oo dhan iyo hoggaanka Soomaaliya ka jira which is true ilaaha runta jecel moogta aada looga soo shaqeeyay Puntland waxa looga soo shaqeeyay shirarkii laga sameeyay ee ahaa maxay tahay Garowe 1 Garowe 2 iyo Garowe 3 mar walba taariikhda Puntland markii laga hadlaayo waxa laga hadlaa shirarkii qiimaha badan ee lagu soo qabtay heshiisintii dalka Soomaaliya lagu soo qabtay sida ay gacan uga geysteen now galmudug waxay u socotay halka waxay u socotay legacy waxay u socotay taariikhda inay galaan waxay u socotay shirka lambar 3 hadday dhameeyaan oo wanaaga dalka Soomaaliyeed badbaadadiisa ay ku dhameeyaan in ay noqon doonaan ayagi inay kasii saramari doonaan Garowe 1 Garowe 3 iyo Garowe whatever Garowihii la sheegayay inay kasii saramari laakiin ma dhicin sababtaan u dhicin ma taqaana because Aranjan ma rabaan in laga qaado magacaas ma la rabo in qolo kale la amaano ma la rabo in qolof kale sharafta qaadato ma la rabo in qolo kale la dhaho you did great ma la rabo taariikhda Soomaaliya waxa la rabaa only qolo yar inay haysato oo tiraahdo annaga le taariikhyahana annaga le wanaaga wadna annaga le jacaylka wadna annaga le loofka wadna annaga le kaba adduunka wax nobody else ka siyaasadda dalka ku gaartay anima diidani laakiin waxaan diidanahay walaalka Soomaaliyeed ee aqligiisa iyo maskaxdiisa la daba mariyay ee middle school kids ku ka haysteen ee asaga legacy uu ka tagi lahaa
asaagiis u diiday inuu ka tago nin asaagiisa u diiday inuu ka tago oo dhaho war fiiri anigoo habar gidir ah ayaa maanta waxaan go'aansaday inaan dalka Soomaaliyeed wax ka badbaadiyo inaan dib u dhiso dalkaygii inaan shala hadaan ahaa burburiyihii ugu adkaa ee maxay tahay difaaca adkaa ee lagu yaqaanay in dagaalka inaan maanta dadkayga tuso wanaaga oo anigu aan noqdo number 1 hagaajiyaha dalka Soomaaliyeed inaan noqdo lama ogola because taas waxa loogu diiday ma la rabo inaad qaadato legasigaas lama rabin aqligaagu ha shaqeeyo aniga awoowayaal iyo ab iyo sinji iyo kulligeen qof ma jeerteen oo habar gidir dhalin horta ma jiro runta idin sheegaya awoowa iyo ahel iyo kulligeen saasa isku nahay dad is wada dhalay baana dadkaygii waa walaalahay waa familkaygii waa dadkaygii Soomaaliyeed waa laakiin maanta tabalfiir number 1 iyo number 2 dad isu keeneen sharafay sameeyeen gogolay dhigeen magaca waxa loo diiday inay qaadaan number 3ga oo la dhaho okay you did great maanta you win oh my god taariikhda Soomaaliyeed saa ku gashid inaad dhigtay gogol sharafeedkii gogol dhaqameedkii gogol nabadoonkii aad dalka Soomaaliya u fidisay laakiin fulo guul ku dhaweeyda Aaranjaan ku seejiyay inta kali ayuu Aaranjaan kugu seejiyay guusha yaa iskale Aaranjaan ba iskale guusha yaa iskale Aaranjaan ba iskale guusha yaa iskale Aaranjaan ba iskale legasigoodina ayaga meel u yaala because legasigii lagu soo qabtay Puntland ee ahaa inay wax qabteen dalka Soomaaliya nabadiisa ka taliyeen dalka Soomaaliyeed u adeegeen jecelaadeen ummadda Soomaaliyeed mid ay noqoto ayaga meel ugu qoran yahay lagamana qaadayo because waa taariikh run ah oo u soo halgameen inay dalka Soomaaliyeed dib loo heshiiyo iyo nabad inay ka dhacdo laakiin tii adiga aad samayn lahayd reer awowgayow taa adiga samayn lahayd adeer ilma habar gidirow taa samayn lahaydeen tolkayow taa samayn lahaydeen Aaranjaan jambal idin tuuray Aaranjaan ayaa wuxuu idin ogolaan waayay in aad wingaraysaan oo shirkii gogashii saddexaad ee aad dhigteen inaad ku wingaraysaan oo wax wanaagsan ka soo baxaan waa reality-ga waay because the middle school kidska gudoomiyaasha gobolada kulligood waa middle school kids because aqli ay leeyihiin iyo siyaasad ay leeyihiin waxa ii soo baxday inayna ku soconin ee siyaasadda Aaranjaan kaliya ay ku socdaan waxaad ku socotaan siyaasadda Aaranjaan waxaad ku socotaan talada Aaranjaan waxa idin go'aamiyay waxa sameeynaysan oo dhan Aaranjaan hadda tiin gudoomiyaasha gobolada ciyaal middle school iga dheh Johnny Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan isugu tagno Johnny Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan isugu tagno banaanka u soo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan isugu tagno laakiin waxa lagu dhaafsiiyay reer galmudugow waxa la idin dhaafsiiyay taariikhda galmudug ay heli lahayd galmudug qabiilada Soomaaliyeed oo dhan baa ku nool don't get me wrong laakiin galmudug gacanta waxay ku jirtay qoorqoor waxa uu ahaa ninka gogosha dhigay qoorqoor wax garadkoodii ay ahayn gogosha wixii dhigay inay legasigooda hantigareeyaan hantin inay ku sameeyaan legasigooda hantin ku sameeyaan ayay ahayd Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa siyaasi dulqaad badan oo xishood badan oo dal jecel oo wax kasta u sameeynaya dalkiisu inuu hagaago adiga laakiin maxaa u garan weydataa maxaa u sameyn weyda wax walba inaad legasigaaga ka hormariso oo sharafta Soomaali kuugu galaysa ka hormariso oo taariikhda inaad galaysa ka hormariso oo ummadaadi iyo qoomiyadaadi inaad hagaajinaysa ka hormariso maxaad u galin weyday oo maxay tahay all the affected maxaa u galin weyday oo ugu tali galin weyday in aan adiga shaarkaagi dahabka ahaa ee sharafta ahaa ee gogoshaha ee aad dhigtay inaan nin kale ta gashanin because ciyaal middle school Johnny Aaranjaan aan ku adeegata iyo Dani ayaan ku adeegata kulligiin Aaranjaan iyo Dani baan ku adeegta Danina ma siinaya credit-ka waxba kuma adeegto laakiin Aaranjaan ku adeegta laftirkiisa waa picture waa sawir meesha saaran waay sawirkaasna Aaranjaan saartay qolo la dhaho Aaranjaan qabiil ma aha Aaranjaan waa group of mafia oo isu tagay waaye Aaranjaan meesha saarteen Aaranjaan waxay u dirtay assignment-iga ay Aaranjaan siiso kaliya ayuu ku socdaa Puntland wuxuu ku dhaqaa assignment-iga Aaranjaan siiso gudoomiye goboleedka wariyaha gudoomiyaha baarlamaanka buri wariyaha maxay tahay haduu isu ka waalwaalo maxay tahay ninka la yiraahdo madaxweyne ku xigeenka Puntland haduu isu ka waalo ceeri wariyaha adiga meesha u sareeya asaga dhan wuxuu qaataa assignment Dani waxa uu ku shaqeeyaa assignment ay siiyeen Aaranjaan ma aha wax aqligiisa ka soo baxay ما ها واحد أسرع محيط مسكح دي سكاي ماضي وحو كوس عدا أو كليئة assignment ICN محيط أرنجان وحونا قد بيا توا ماسنجر وأي ما طي مسج أيدي بتي شغالة كوا هاي ماسنجر كذا وان قد بنايا he's the only messenger that's all وو قد بيه
wixii uu rabay ayuu gudbiyay على أي حال شركي أو قلمدوك أو شرفت لها أو نبض الله وقتل أو دلك الصوماليين تودي أرن كان دمسي أوردركينا وقعتين ماسنجر بوها نيكل ردني أيجا أيانا هلكا كحين وحين دمعين إن أنت إسكت تجان أيجا دم هالمرة دهين هدان هاي شنطة دولة قبلات وأنا أقولك أفك أقولنا محمد عبد الله فرماجو لكن محمد عبد الله فرماجو حق بوتاجني هاي دلك الصوماليات بوتاجني هاي قومية أمد الصوماليات بوتاجني هاي قرنيم بوتاجني هاي شيء دلك إنه كسو أهلي لا يو أو إذن كأنه وطا أيو يرتك هايا مركا إن شاء الله حق أيا أوهيلين دونا حق أيا أوهيلين دونا أمد الصوماليات ما أنت وحدو استاكتان إنا كلا دورتان قرنيمو إيا شيء قرنيمو إيا شيء إنا كلا دورتان إنا دلك صوماليا دورتان إيا إنا قميسي إيا شيء دورتان إنا دو استاكتان مدحوينها محمد عبد الله فرماجو أو كل جين ما دام الحق تاغني حقنا الله سبحانه وتعالى إنا يري حقه ويستاغ الله سبحانه وتعالى إنه كوكو بابي أو نقو يري وحا حقها كقبننا حقه ويستاغ مركا حقه هدات ربطان إنه ويستاغتان كل جين ما أنت محمد عبد الله فرماجو هلا وذا قرب استاغو هلو استاغو عيال من السكول كهلا قبطو جوني محيط يسوقو طقه هلا قعشو هذا الكيسوات أركتين والله أو بالله أو طلعي نينكي ضمير لي ما أنت هذا القيمة لي أو محيط جيركا شرعة كوجو جبيسة أيوكو هالي ناو أنا قولي جايبه وأوجا هرتا إلهي أمريكي some people أنا مركي ميلها أتكسو هاللسان برق ناكتي فرماجة العتك سينجري فرماجة أنا ما يقانو كبها وقبل حتى يقام يقانا لغيابا كنت مركا يدين شيغو لكن أنا أيا سياسة ديسة يدل جعيل كيسة إيا ودني نمديسة إيا أمد نمد سور رادينايو إيا قومي نمد سور رادينايو أنكو جعلادي أنا وحان نبعاي أو كسور جيدا جمهديسي إيا قبيالد جمهديسينا الله ما بتصبع جمهد معاتي أنا تلقيقة جمهد SF DF مالها إلا إيا محيط إيا جمهدي قبل لبضن I hate them كل جود I hate them أباها يجيلي يقري them because أصغر معارضة كديين أبل أنا كل شان كوكري هدنا هو يدا يجا قحيين هدنا هو يوينك الصومالية دنا عروتو دي يجا قحيين هدنا أمدي الصومالية دنا يكلا تورين كم هذا هدنا أنا I hate them including the first one أو محيط أنا قد كيكا كيمادين كل جين واحد نبعه كل جين كم هذا FSB أو وريسو I hate you so much because you make me without country you waxaad naga dhigteen without country without people without nation without waxaad naga dhigteen annagana waxaad naga dhigteen without sharaf naga dhigteen aabaheeya waxa ka dhigteen inuu noqdo mucaarad oo dawladda Soomaaliya ka soo horjeesto oo uu godka galo jilcow aabahay aabalaan aan ku kor ay ga dhigteen haddana markaas waxa iigu sii darteen hooyada inaan qaxisaan haddana markaas waxa iigu soo darteen 16 sano anoo jiraan hooyada inaan kala tagno oo adduunka dacaleynsa aan ku kala noolaano haddana waxaad nagu sii sameeysan hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan inaad qaxisaan oo ayaga oo shaah iyo maxay tahay iyo yaaya gadaa ilmahooda ku korsanaya inaan qaxisaan haddana waxaad noogu sii dirteen inaan noqono nation ever ah because markii aad imaanayseen jamhadow markaad imaanayseen balaan B baa wadateen laakiin balaan A ma wadanin only balaan B giina wuxuu ahaa madaxweynaha tuura haddaad aqli leedihiin waxa ka sii fakar leedeen okay balaan B baan wadanaa war maxaa balaan A maxaa noo ah sidee baan dalkeena u hagaajinaa isugu waxay walaalayaalo